وإذا سلام دمانتينا مقعيقو إبراهيم آدم كسو دو channelka فضلا channelka تدكو عصبتاي سبسكرايب نوصر سيدو كالي لايك بدنك نوتابا ومحسنتهاي waxaan rabaa maanta inaan idila wadaago 5 arimood oo ninka raga ah looga baahan yahay inuu ku dadaalo 5tan arimood waa kuwa aad ugu muhiim ah ninka raga ah inuu leeyahay sidoo kale waxay ka caawinayaan horumarka naftaada dhan walba 5tan arimood hadii uusan lahayn ninka raga ah waligiis horumar ma sameeynaayo wiiliyow waxaad u baahan tahay 5tan arimood inaad leedahay sidoo kale gabarihii adigan waxaad u baahan tahay 5tan arimood si aad u ogaatid ninka raga ah arinka koowaad planning your future qorsheynta mustaqbalkaaga hadii maanta aadan qorsheynin mustaqbalkaaga goorme ayaad noloshaada heer ka gaaraysaa waayo hadii aadan qorsheynin mustaqbalkaaga maxay tahay horumarka nolosha aad rabto inaad ka gaarto maxuuse yahay ujeedka nolosha aad ka leedahay ma iska nooshahay ma soo kacaysaa ma seexanaysaa on haddaba ninka raga ah waa inuu leeyahay qorshe iyo target uu rabo inuu gaaro arinka labaad wuxuu yahay studying something waa inaad wax darasiisaa wax cun inaad barataa waxbarashada way noocyo badan tahay mana dhamaato waxbarashada waa furaha albaabo badan oo ka xiran aqoon aadan u lahayn awgeed waa in aad xirfado badan aad barataa si aad ugu horumariso naftaada iyo qorshaha aad degsatay ee aad rabto in aad gaartid Warren Buffett oo ah maalqabeennada adduunka ugu horeeya ayaa yiri the more you learn is the more you earn oo ah kulama aad wax barataa waa kulama aad kasbataa ama aad wax badan heshaa dhan walba dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba marka waa in aad ku dadaashaa mar walba sidii aad xirfad cusub u baran lahayd arinka saddexaad ee kula wadaagaya ayaa ah stay hygiene mar walba haw mid nadaafad badan fiiri hadii aadan nadaafadaada ku dadaalin maxay tahay wax kale ee aad rabto in aad ku dadaashid hadiiba naftaada nadaafadeeda wax horumar ah aadan ka sameyneynin maxay tahay horumarka kale ee aad rabto in aad sameyso sidoo kale nadaafada waa iimaanka barkiis marka waa muhiim nadaafada naftaada fiiri nin nadaafad aan lahayn marka hore nin rag ah maba ahan marka labaad ninka aan nadaafada lahayn gabadha rabta maxay tahay marka ugu nadaafadaada waa muhiim waana shayga ugu horeeya fadlan ku dadaal nadaafadaada arinka afaraad dress well waa in si wanaagsan aad u labisataa fiiri waa in mar walba aad tahay mid la jeclaan karo aragtidiisa marka qofka ku arkaayo waa in aad leedahay muuqaal fiican oo indhuhuba ay jeclaan karayaan in ay arkaan mar walba hadii dhar dulf ah aad qabto yay tahay cid u soo xiisaysa inay ku arkaan ama kula hadlaanba kulama aad labis wanaagsan tahay waa kulama aad soo jiidasho leedahay marka qurxi labiskaaga iyo muuqaalkaaga guud ninka raga ah waa kan muuqaalkiisa la jeclaan karo ku dadaal muuqaalkaaga in aad wanaajiso arinka shanaad uguna dambeeyo muuqaalkan waa be good at doing anything waa in aad ku wanaagsan tahay wax walba sameyntiisa waa in aad naftaada dhan walba ay ku wanaagsan tahay hadii waxbarasho tahay hadii shaqo tahay iyo hadiiba qaab hadalkaaga uu yahay kow waxbarashada waa in aad tahay kan ugu horeeya uguna wanaagsan ama aad ka mid ahaataa kuwa ugu wanaagsan labaad waa in aad markii shaqada la joogo aad tahay kan ugu wanaagsan ama aad ka mid tahay kuwa ugu wanaagsan saddexaad markii la joogo hadal jeedinta hadii dad badan hortooda hadal ama mowduuc laga hadlaayo waa in aad ku wanaagsan tahay balse adigoo nin rag ah hadii aad aqoon qaabka dadka hortooda looga hadlo waa daciifnimo dhanka raganimadaada ah marka ku dadaal in aad barataa sida dadka hortooda looga hadlo sidoo kale waa muhiim in aad ku wanaagsan tahay wax walba siiba saddexdaas shay aan soo sheegnay muuqaalkan halkaas ayuu ku egyahay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waxaan ku leeyahay ku raaxayso noloshaada peace